asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijaynu ku eegi doono dagaalka social mediada ku dhex maray fanaanka dayaxdal nuurshe iyo kooxda waayaha cusub oo soo qaaday hees ay ku dhaleecaynayaan xukuumadda ay hogaamiyaan khayre iyo farmaajo iyagoo ugu magac daray nabar iyo naxdin halkii ay xukuumaddu adeegsanaysay nabad iyo nolol. Dagaalka waxaa soo bilaabay kooxda, balse waxaa bartiisa facebook ugu jawaabay dayaxdal nuurshe, wuxuuna hadalkiisu u dhignaa sidan: hadday dowladda caayaan ayuu yidhi oo ay soo qaadaan hees ah nabar iyo naxdin, waa xadgudub faneed oo ay qalad tahay in laga tillaabsado. Hadday been tahay ma sheegin, laakiin hadday run noqoto waxay keeni doontaa isku dhac faneed. Aniga oo dayaxdal nuurshe ah ayaa bilaabi doona jawaabta heestaasi foosha xun. Sidaas waxaa yidhi fanaanka dayaxdal nuurshe. isla saacada gudahood markiiba isla bartiisa facebook soo dhigay qoraal dayaxdal nuurshe uu ku cadaynayo inuu gebi ahaanba joojiyay heestaasi uu ugu jawaabi lahaa cusub, isagoona ku macneeyey in ay arrintaasi tahay arrin isaga xagga famili ahaan barashar iyo culays kaga yimi ay